xidiga heesta shanta jeer ee horumarinta Poland oo Diego Cristiano Ronaldo ayaa xilligan xaaladda aan wanaagsaneyn ee ku haysta kooxdiisa Manchester United. Badal la isticmaalayo waxaa labadii kulan ugu dambeeyay kooxda guulaha ka gaartay Liverpool iyo naadiga Southampton. Warbixinta aan ku soo qaadan doonaa dardaaran iyo hooyadii u soo jeedisay xilligan ayna u sheegtay inuu ku biiro hal koox intaysan geeriyoonin. Wiilkaygiiyo waxaan rabaa inaad u ciyaarto hal koox. Hadalkan ayay sheegtay Maro Dolores Alvaro oo hooyada dhashay Cristiano Ronaldo. Hooyada Ronaldo oo idaacad ka hadashay sanad ka hor barnaamij si gaar ah loogu casuumay oo lagu baahiyay janaalka Sport Lisbon rasmiga ah ayay hadalkan ka jeedisay. Dolores waxay aad u jeceshahay naadiga Sport Lisbon, heer gaarsiisay inay ka qayb gasho ciyaaraha naadiga si khaas ah. Intaan geeriyoonin waxaan rabaa inaad u ciyaarto kooxda Sport Lisbon. Markii ay joogto Portugal, kulamada naadiga waxay ka qayb gashaa way dabaaldegtaa markay kooxda guuleyso. Marar badan ayaa garoonka ay timid iyadoo xiran maaliyadda naadiga. Sidoo kale Cristiano wuxuu aad u jecel yahay inuu daawado ciyaaraha Sport Lisbon. Haddii arrintu ay gacanteedu ku jirto kama aanu tageen, laakiin haddii fursadaasi ay dhici weydo waxaan rajeynayaa in Cristiano Junior uu ciyaaro kooxda. Xilligaasi laacibka hooyadii waxay ugu jawaabtay waan arki doonaa. Waxay ahayd markii uu Manchester dib ugu soo laabtay sanadkii hore. Indhaha taageerayaashu waxay soo qabteen maaliyadda Sport Lisbon oo ka mid ahayd hadiyaddii ciidda. Waana fariin lagu turjumayo in hooyada Ronaldo ay wiilkeeda ku cadaadinayso inuu dib ugu soo laabto naadiga carruurnimadiisa uu ka soo hanaqaaday. Maanta markaan dib ugu laabano waaqiciga jira, warbaahinta qaar ee soo bixisa ayaa sheegaysa in heshiisku uu laacibka dib ugu laabanayo kooxdiisa yaraanta ay aad ugu dhowdahay heer gaarsiisan 99%. Warbixinadu waxay sheegayaan in wakiilka laacibku Jorge Mendes uu habeen iyo maalinba ka shaqeynayo sidii heshiiska loo dhammaystiri lahaa. Heshiiskaasi wuxuu dhacay intii ay socotay ciyaartii Manchester Liverpool kulanka oo Ten Hag uu keedka dhigay Ronaldo. Ronaldo wuxuu isku dayayaa inuu ka cararo Manchester United isagoo doonaya naadi ka qaybgalaysa Champions League kadib markii isku dayo badan ay sameeyeen oo kula gorgortamayo naadiyo fara badan sida Chelsea, Bayern Munich, Atletico Madrid. Haddii laacibku uu dib ugu laabto naadigiisa yaraanta waxay noqon doontaa dhacdo dareen leh, waana tallaabo u eegi doona inuu laacibku isku diyaarinayo inuu ciyaaraha ka fariisto isagoo isla markaana fulinaya doonistii hooyadiisa. Anagoo og inuu fagaarayaal badan ka sheegay in hooyadii ay tahay qofka ugu muhiimsan noloshiisa. Riyadaasi mariyoobi doontaa oo ma arki doonaa in mar labaad uu laacibka xirto maaliyaddii uu yaraantiisii soo xirtay ee waayis xirfadeed kubadda cagta ka soo bilaabay. Jariirada Daily Mail ayaa waxay la xiriirtay shakhsi ka mid ah mas'uuliyiinta Manchester. Mas'uulkaasi wuxuu xaqiijiyay in aanan waxba ka jirin wararka la isla dhex marayo iyadoo ay jirto faahfaahin badan ka soo bixisa laacibka. Jariiradu waxay tilmaamtay in kooxda Lisbon ee la sheegayo inay caawiyaal diyaariyeen sidii Cristiano loo soo dhaweyn lahaa, laakiin waxa xaqiiqa ah in Sporting aanay qaadi karin culayska mushaharka laacibku, qarash fara badanna ay ku baxayso waqtigan. Ronaldo ayaa la sugi doonaa go'aankiisa ku aadan inuu aado kooxdiisii yaraanta. Hooyadii ayaana laacib kula dardaarantay inta aysan geeriyoonin mar kale inuu xirto maaliyadda kooxdii carruurnimada Sporting Lisbon.